السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الله يجا الصومالية دمانتي وإذ السلام يا الله إذ السلام يا له دمانتي ميلاد شوكتان بوإذ السلام يا ولا الله يجا الصوماليات إلهي إذ السلام يا له الدنيا آخرة ولا ليال دمانتي وإذ السلام يا سلام قيمة بقاير بانكو السلام يا وولاشن ومخالد وما خالد ويا ولاشين وما خالد ويا ولا ليال الحمد لله إلهي هينا كنا بديالا ميل كستو نشوفنا الدنيا أقرب الله هينا كنا بديالا إلهي دم جني دم بواد كين بهدافو نحريس وارتان إلهي كبرنا دمانتين ولا ليال إلهي هينا دم بدافو ميل نشوفنا بالله هينا دم بدافع في اللي مسامح meel kasta aan joogno adduun aan joogno aakhira aan joogno balad aan joogno baadiye aan joogno meel kasta aan joogno Allah ina ku nabad yeelo maanta labadan bir waxba maana soo duubin waxaan soo duubi waay hawl baan yeeshay waad ogtiin qofku markuu hawliyo waxa la yiraahdaa YouTube-ka qofku haduu saxba soo galin hadda waa dukaan aadan furinin waaba dukaan aadan furinin baa la yiri laakiin aniga dukaan ima ahna inaan wax ma aragta akhbaar oo walaalahay dukaankayga waa ii furan yahay waa kan waa furan yahay dukaankayga waa aan furay alxamdulillah wa shukru lillah ilaahi baa ku mahadsan oo ku shukrisan dhamaantiin marka walaalayaal meel aad joogtaan baa idin salaamaya ilaahay idin salaameeyo adduunyo aakhiraba alxamdulillah wa shukru lillah ilaahay ina ku nabad yeelo adduunyo aakhiraba dhamaanteen adduunkana waa loo baahan yahay nabadgelyo aakhiradan isna waa loo baahan yahay alxamdulillah wa shukru lillah dad baa waxay yiraahdaan qofku hadduu dhinto dawaaba qof dhinta khalaas amalkiisi waa go'ay laakiin waxyaalo badan waxa jirta amalkaagu uusan ku go'aynin alxamdulillah wa shukru lillah ilaahay gargaarkiisa marna lagama quusto ilaahay gargaarkiisa marna lagama quusto ilaahay ha noo gargaaro meel kasta aan joogno allah ha noo gargaaro walaalayaal ilaahay idankiisa gargaarkiisa allah ha noo fidiyo dhamaanteen meel aan joogno walaalayaal wixii risqo ilaahay inoo kugu talagalayna ilaahay inoo barakeeyo allah inoo barakeeyo ilaahay inoo barakeeyo ilaahay idankii xoogeena iyo xoolaheena iyo ilmaheena iyo dadkeena iyo nafteena iyo maalkeena ilaahay inoo barakeeyo walaalayaal dhamaanteen allah inoo barakeeyo insha Allah bismillah dhamaanteen baa allah inoo barakeeyo walaalayaal alxamdulillah wa shukru lillah ilaahay baa inoo gargaarkii allah inuu ku joogna adduunkan ilaahay gacan qabashadiisa aynu ku joogno ilaahayna gacan qabtay inoo gargaaro inoo naxariis waarta adduunyo aakhiraba walaalayaal dhamaanteenba maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo hadii ilaaha qaadirka raxmaanka uu yiraahdo waxaan rabaa inaan ka hadlo walaalayaal waxaan rabaa inaan ka hadlo Soomaaliya hore baan idinku sheegay hooyo Soomaaliyeed baan ahay oo Soomaalinimadu ku weyn tahay oo muxuu hayto u dhalatay Soomaaliya baladka Soomaaliya yiraahdo wadanka Soomaaliya yiraahdo u dhalatay balad ma ahna waa wadanka Soomaaliya la yiraahdo u dhalatay baan ahay oo jecel ilaahay subxaanahu wa ta'ala wadankayaga meel walba la joogo ilaahay dadka joogaha ku nabadgeliyo ilaahay ku xafido nabadgeliyo taama iyo risq waasacan Allah ku siiyo adduunyo aakhiraba Allah u gargaaro cudurrada iyo masaayibaha socdana ilaahay subxaanahu wa ta'ala hayna ka xijaabo waxaan nahay hooyooyin Soomaaliyeed oo kulligood Soomaaliya meel kasta oo la joogo ay isaga mid yihiin dadka ku nool ay hooyo u wada yihiin baan nahay oo wada jecel kulli waa wada jecelna Soomaaliya meel kasta oo la joogo meel kasta oo lagu nool yahay Kenya ha ku joogo ha noqoto kuwa Djibouti joogo ha noqoto kuwa Ethiopia haysato intaba iyo inta ka dhaxlo Soomaaliya ka mid tahay inta hadda muxuu haytaan ciidu haysan ay ka mid tahay kulligood hooyooyinkii Soomaaliyeed baan u nahay hooyaan u nahay wiilasha iyo gabdhaha iyo caruurta iyo kulliba ilaahayna waxaan ka baryaynaa Soomaaliya meel ay joogaan ba ilaahay inuu gargaaro oo balaayada adduunka iyo balaayada aakhiraba ka xijaaba ilaahayna inoo kaga gargaaro cadawga gacanta raba inayna ku dhigaan oo raba inayna gilgilaan oo raba wadankeena inay qabow ina badaan oo kulayl ina badaan oo qaxar ina badaan oo carab ina badaan oo cajab kale ina badaan ilaahayna ka qabto baan leenahay aamiin dhahay walaalayaal inagu waxaynu nahay wadan baynahay wanaagsan oo qabow oo muxuu hayto kulayl lahayn oo qabow siyaada lahayn oo nicmaan ku jirna ilaahay baan ka baryeynaa ilaahay inuu noo siyaadiyo cadawgana naga qabto walaalayaal ilaahay idankiisa aamiin dhahay wadankeenu waa wadan nicmo ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala intuu raaliga ka yahay
waa dad salaada jecel waa dad muslimnimadu ku weyn tahay waa dad quluubtoodu quraanka iyo khayrka ku weyn tahay waa dad maxaa weeye muxuu ahayto wax walba oo maaragta ilaahay raali ka yahay jecel weeye wixii hadda shaydaan duufsado oo dagaal iyo xarb iyo masaa'ib iyo qabiil iyo balaayo ku shaqaystana ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu noo soo hanuuniyo waa dadkayagii waa ilmahayagii waa carruurtayadii waa raggayagii ninna kama maarana waxaa la yidhi ninkaaga xun haddaada wadan baa layidhi ninkiisa xun wataa ku dilaa la yidhi marka ilaahay waxaan ka baryaynaa dhallinyarada iyo muxuu ahayta intii maaragta aan dadkeena iyo dalkeena iyo isku duubnaantiisa aan jeclayn ilaahay subxaana wa tacaala ha soo hanuuniyaan leenahay ilaahay ha soo hanuuniyaan leenahay goor lagu jiro goor samada furantaa ma naqaan qof lagu jirana allaa og ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu soo hogaamiyo oo ku soo celiyo khayrka iyo dadnimadoodii iyo magacoodii iyo muunadoodii soomaalinimo inay mideeyaan allah ku soo hanuuniyo innagu haddaan soomaalinahay walaalayaal waxa weeye waxaan nahay dad qab weyn baa la yiraahdaa waxaan nahay dad qabweyne u dhashay baan nahay laakiin qabweyne waxba ma tarto qabweyne iyo anaa reer hebel waxba ma tarto waxaa wax tara oo wanaagsan walaalayaal qofku inuu alla garanayo inuu og yahay maalinta dambe in maalin dambe jirto in maalin dambe jirto in la dhimanayo in qiyaamo jiro inuu intaa qofku og yahay baa run laakiin hadduusan qofku intaasba ogeyn oo intaasba uu qofku ka daymoon yahay waxa weeye waa wuxuu ku dhacayaa meel xun buu ku dhacayaa ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal hayna ka nabadgeliyo ilaahay ammaanadiisa hayna ka dhigo ammaano alla waa ammaana rasuul ilaahay hayna ka dhigo ilaahay idankii calayhi salaatu wasalaam walaalayaal marka waxa weeye waddankeennii waad aragteen maantay doorashadii heerkay marayso dhallinyaradeenni iyo raggeenni isqabqabsashada ay ku jiraan maxaa inoo dana innagu haddaynu soomaalinahay maxaa inoo dana maxay taa waxa inoo dantaa innaga ismaanta isqabqabsasha dan inoo kuguma jirto waddankeennii oo burbura dan inoo kuguma jirto dadkeennii oo haajira dan inoo kuguma jirto carruurteennii oo baylahada dan inoo kuguma jirto maxay taa waxa danta inoo kugu jirtaa walaalayaal adinkuba waad ogtiin soomaaliya maanta dalkeenna haddii waxa way cadow qaato qadaamada iyo shaqaalaynu ka noqonaynaa dhuuxeeda iyo khayrkeeda waxa helaya waa ninka gaalka ama ninka carabka ayo ina qabsada waa masaa'ib kuma dhaanto inaga dadnimadeennii iyo sharafteenii iyo magaceennii iyo muunadeennii baynu ku ciyaaraynaa markaynu weli isa sii qabqabsanno haddaynu weli qabiil isku riixriixno haddaynu weli masaa'ib ka talino waxaynu ka talinaynaa waxa weeye waa magaceennii baynu maalinba maalin sii baabeinaynaa maalinba maalin magaceennii baynu sii baabeeraynaa danuna inoo kuguma jirto marka walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala inoo gargaarka alle waa muxuu hayto ilaahay waa gargaarkiisu waa badan yahay ilaahay inoo gargaaro inoo naxariis waarta adduuniya aakhiraba walaalayaal mar walba marka waa inaynu ducaysanaa waa inaynu taladana aynu walaalayaal wax iska siinaa oo niraahna war dadweynaha kan waa kan loo dagaalamaya in la xukumo war dadweynahan aynu warkiisa aynu maqalno nin la soo doortay oo lacag lagu soo doortay oo lacag bixiyay oo kursiga ku fadhiista oo lacagtiisa raadinaya yayna iska arringelin haddaynu nahay shacabka Soomaaliyeed aynu dhahno war anagu maxaan ku leenahay anagu meeshii loo shacabaday ninkii loo shacabku uu codeeyo walaalayaal ayaa ka fiican nin lacag lagu soo doorto lacagtiisa ay khidmad ku helo raadinaya ilaa ninkaan kursi aan lacag laygu siinay ninna ma rabo maanta kursi ku fariisinayay ma rabo haddaan xoolo ka helaynin dad marka sidaa u tartan ugu jira walaalayaal inaga dan inoo kuguma jirto malaayiin dad raba inay nagu qaataan inaga dan inoo kuguma jirto kuwa laakiin xaq wada hadda ninkan baarlamaanka haysta oo odagaan hebelka sheekh la yiraahdo oo baarlamaanka haysta walaalayaal waa fiican yahay aniga sida muuqaalkayga iiga muuqato waa nin islaam oo ma aragta inuu shacabka la socdo aan u malaynayo inuu yahay laakiin waa tayda waa maladayda aniga walaalayaal marka waxa weeye ninkeena wanaagsan aynu taageerno mid kasta ahaada ilaahu muu ka yimaada Kenya meesha u dambaysa aynu taageerno
walaalka hadduu yahay oo uu maaragta aad u jeedino xagal bidixayn ku jirana walaalayaal aynu asaga ku cadayno hadda Soomaalidu waaba fiican tahay haddaan YouTube-ka ka arkay waxyaalo badan oo gabdhihii ha noqdeen wiilashii ha noqdeen laga soo istaagay baa marka jirta maanta dagaal cid uma rabto qabiilna maanta cid uma rabto aynu intaa ku sii wadno intaa haddaynu ku sii wadno oo intaa aynu ku sii wadno waa guuleysanaynaa walaalayaal intaa haddaynu ku sii wadno walaalayaal waa guuleysanaynaa horumar fiican baynu gaaraynaa haddaynu intaa ku wadno sababtay maanta dagaal cid uma rabto maanta dagaal cid uma rabto xarbi cid uma rabto masaa'ib cid uma rabto mashaakilna cid uma rabto intaas aynu xoojino weeye inagoo qabiil diidna oo dhahna qabiilkaad wadid muxuu yahay balaayada la duulaysid mid siyaasinimo iyo xoolo ku raadinaya inaanu hor istaagno mid xarbi iyo dagaal raba wiilasha iyada in lagu baabi'iyo dagaal la geliyo inaanu hor istaagno mid muxuu ahay tashabka iska garaacayo le anigoo reer hebela iyo anoo reer hebela inaynu hal mar meel uga wada istaagno intaas ayna anfacaysa ilmaheena anfacaysa reerkeena anfacaysa guryaheena anfacaysa wadankeena anfacaysa nafteena anfacaysa inta aynu hor istaagno haddaynu inta haddaynu isku raacno wallahi waxayna ka xumaanayaan male inaga guuleysanayna ilaahayna talada saarana subxaana qaadira sababtay waxaan joojinaynaa waa dhiig islaameed waxaan joojinaynaa waa dulmi qof laga galo waxaan joojinaynaa waa been iyo balaayo iyo propaganda la wado intaas oo dhan baynu joojinaynaa ilaahayna inta in la joojiyo raali buu ka yahay inta inaynu joojino ilaahay raali buu ka yahay gacantii sarreysa Allah ina ka dhigaya inta haddaynu sameeyno laakiin haddaynu intaas oo khiyaamo ku jirto oo laalaab ku jirto oo reer hebel ku jirto oo nin jeclays ku jiro waxa weeye waxba ku heli mayno wallahi baaba inoo sugnaanayo ilaahay se waxaan ka baryaynaa ilaahay inuusan baabiinin ilaahay inuu noo naxariisto noo dambi dhaafo na risqo ilaahay balaayada adduunyo balaayada aakhiraba naga xijaabo walaalayaal mar walba waxa loo baahan yahay walaalayaal inaynu isku dardaarno waxa wanaagsan oo ilaahay raali ka yahay mar walba inaynu isku dardaarno waxa ilaahay raali ka yahay mar walba inaan isku dardaarno wixii fidmo wada inaynu gacanta ka qabanno oo dhahno war waxaan kuma anfacayaan aakhirada adduunka ka joog inaan dhahno ka joog aakhirada adduun midna ku anfici mayso ka joog wartan ka joog wallahi kuma anfacaysa inaan dhahno marka walaalayaal waxaan idin leeyahay aniga umma Khaalida walaashiina garabkiina la taagan inaan wax san isu sheegno garabkiina la taagan inaynu hooyooyinkii Soomaaliyeed nahay oo wax xasan ka talino garabkiina la taagan inaynu wax san maahana waxunayna afkeena ka soo bixin Soomaali inay Soomaali noo tahay nin jecelays inaan iska dayno inagu waa jecelnahay markii kii xoogaa wax dhaqaajiyaba gacan baynu siinaa alla kana fiicana hala daayo annagoon qabiil u fiirinayn inagoo ilaahay wuxuu igu og yahay inaan qabiil meesha u soo gelin oo ana qabiil u fiirin waxaan mar walba waxaan taageeraa kaan israada kana wax dhaqaajinahay alla kana midha fiican alla kana fiican marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala horta dambigeena dambi waarteen baa dhaaf allahna ha noo naxariisto walaalayaal naxariis waarta allah ina siiyo mar walbana waxa layna ka rabaa inaynu hor istaagno waxaan dan inoo kugu jirin waxaan dan inoo ahayn inaan ka hor istaagno oo dhahno war waxaan ma fiicna war afka iyaga annaga iskale waxa kana ma fiicna waa u jeednaa dan nooguma jirto hoga baad nagu wadaan cidla inaan dhahno xaq baan u leenahay ilaahay dambigeena dambi waarteen baa dhaaf ana noo naxariisto mar walbana waxaan jecelna wax wanaagsan inaan isfarno walaalayaal ilaahay idankiisa biidmillaah waxaana ilaahay idinkaga baryayaa dambi dhaaf iyo khayr barako iyo khayr badan baan ilaahay inoo kaga baryayaa dhammaanteenba walaalayaal waana idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh